doodsan ay celiyeen baabuurtii ka imanaysay gobolka bari una socotay gobolada dhexe iyo gobolada Puntland iyo wixii ka sheeya arintaas oo muddadii maalmahan ahayd hawsheeda iyo sidii loo xalin lahaa baabuurtaas sidii loo deyn lahaa aan ku jirnay hadaan nahay xildhibaanada gobolka Nugaal ilaahay maadiis waxa ah inay noo fududaatay inaan baabuurtii sii deyno annaga iyo saraakiishuna aan ku heshiinay baabuurta in la sii daayo wixii tabashaa oo jidhana si hoose looga wada hadlo oo aanu ka wada hadalno waxaan u mahad celinayaa ciidankii meesha joogay oo aan wax dhiba geysan dadkii waxaan ka ma garanaysaa raali gelinayaa bulshadii meeshaan ku dhibaataysnayd muddadaas oo u socotay gobolada dheerdheer ama gobolada fogfog oo muddo 3 cisho ah halkaan ku xanibnayd waxaan leenahay raali gelin baanu ka bixinaynaa buuxda arrintaas waxaana keenayna waxay ahayd tabasho ciidankiina insha Allah waxaan rajaynaynaa tabashadaas dib inaynu soo noqonaano xalin doono waxaan u mahad celinayaa saraakiisha ciidanka oo aad noola furfurdhay oo noogala shaqeysay ciidanka sidii loo sii deyn lahaa iyo in kastoo ka qayb qaadatay arrinta tan halkan aan u joogno aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad bay idinku mahad celinayaa xaquuqdii anagu ma helin waxaan u furay meeshaas oo aan u turay waa shacabkayaga waxaana naga codsaday xildhibaanada gobolka Nugaal waana ka aqbalay xaquuqdayadiina insha Allah iyagaanu ka sugaynaa arintaas aasaan u furay shacabkayagaan u turay wax anagu aan xaquuq hadarna soo gaadhay aan kontaroolka u furay ma jidho sida laaligeed xildhibaanada gobolka Nugaal baa naga codsaday meesha inaan furo iyo shacabkayaga aan u turay waana ka baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bahda warbaahinta bacda salaan ilaahay baa ku mahadsan horta hawshii halkan oo leed in ilaahay inoo fududeeyay mahad ilaahay baa iska leh inta haddaan taa kaga gudbo halkan ciidan baa xirtay sababta ay u xirteena waxay ahayd tabasho xuquuq asaasiya mid mushahar ayadoo oo qodobaysan oo xubno badan kala leh ma la xalin arrintaas xal laga gaaray darteed looma sii dayn gaadiidkii iyo wadada midna sababta loo sii daayay waxay tahay in loo tuuray shacabka reer Puntland kuwa halka taagan iyo kuwa ay u raran yihiin intaba qodob waa qodobkaas kan labaad codsiga ugu muhiimsan waxaan noo keenay xildhibaanada gobolka Nugaal intii wadadaas la xireen hawshaas nala waday naguna adkeynayay in mar walba la sii daayo horta ilaahay maadi waxa inay noo fududaatay aanu furnay wadadii waxa soo hadhay tii tabashada ciidanka hawshaasi ma fulin meeshii bay taagan tahay waxaan rajaynaynaa in ay furo u noqdaan xildhibaanada gobolka Nugaal ka soo jeeda ayaga iyo cidii laga tabaanayayna inay hawsha iska kaashadaan xiriiriye u noqdaan fududeeyaan sidii loo heli lahaa xuquuqdaas waan rajaynayaa taas cidii xuquuqda lagu lahaa in la helana laga helana waa rajaynayaa laakiin waxa wadada loo furay ma aha amar dawladeed heshiis dawladda iyo ciidankii wadada xirtay ay gaareen ma aha wuxuu yahay waxa wadada loo xiray loo furay waa u turid shacabka wadada taagan iyo kuwa ay u raran yihiin labadaba qodobka labaad oo heshiiska horaan u sheegay oo ah adkeynaya intaasna ka dabalaabanaya in wadada la furo waa xildhibaanada hareeraha taagan waa ku mahadsan yihiin waana xil saarnaa waana rajaynaynaa inay inta dhiman dabada iska raaciyaan nalana dhameeyaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi